ururka daryeel oo markaasi ay hindisihiisa iska lahaayeen qurba joogta reer Khaatumo isla markaasna laamo kala duwan ku leh gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa xafiiskiisa degmada Taleex waxa ay qurba joogta reer daryeel soo gaarsiiyeen kaalmooyin lacageed oo markaasi loogu talagalay in la gaarsiiyo caruurihii ay aabayaashood ku geeriyoodeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Somaliland iyo kuwa Khaatumo iyadoo markaasna xubno ka socday ururka daryeel oo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha ururka daryeel ee laantiisa Taleex Rooda Sheekh Axmed Nuur afayeenka ururka ee degmada Taleex daryeel Master Maxamed Cabdullaahi iyo waliba sidoo kale xubno kale oo iyaguna ururkaasi ka tirsan waxa ay deeqdaas lacageed gaarsiiyeen goobihii loogu talagalay oo markaasi ay kamid ahaayeen deegaano hoostaga degmada Xudun ee gobolka Sool oo markaasi ay dagaaladu ka dhacayeen iyo degmada Taleex iyo waliba caasimadda gobolka Sool ee Laascaanood iyadoo markaasna deeqdii ugu horeysay ay ka bixiyeen duleedka degmada Xudun goobta loo yaqaano Waxra Ciyaarshe oo markaasi ku dhow goobta ay degan yihiin culimada xeerto sidoo kale waxay deeqda lacageedina ay ka bixiyeen tuulada Gorofley oo ka tirsan degmada Xudun iyo waliba kaamka loo yaqaano Gandhicile iyadoo sidoo kale ay markii ay ku soo guriga noqdeen degmada Taleexna ay deeq lacageed sidoo kale ay guddoonsiiyeen qaar kamid ah dadka ku nool degmada Taleex oo markaasi mas'uul ka ah caruuro agooma aabayaashood kal hore ay ku geeriyoodeen dagaaladii soo jiitamayay ee u dhaxeeyay ciidamada militeerka Khaatumo iyo kuwa Somaliland waxaan ka soconaa ururka daryeel xafiiskiisa Taleex waxaan deeq lacageed soo gaarsiinay dadkii ay aabayaashood ku dhinteen dagaalkii ka dhacay Soona Xudun waxaan nasiib u yeelanay inaan halkan kula kulanno ilma Cabdillaahi Cabdi Mire iyo ilma Cali Odawaa agoomaha inaan ku wareejino deeqdii lacageed oo aan ugu talagalay iminka waxaan ku wareejinayaa maxamed Cabdi Mire shaqsigii wuxuu leeyahay lacagta $169 shaqsigii على بوفا كوبي طبعا عرورة مكاننا من قرن كل يسدد بقول كنتم $9 هي كوبي طبعا كعيال في شيء أنا يسوي جارسين أنا حفيز كيسة تريح لعب كل يسدد بقول كنتم $9 كل يسدد بقول كنتم $9 هو كيل عروسة عبد الله الحمد لله يقدر يسوي جارسين أوروكاس وهو مع الدنيا وعليه أوروكا خاتمه دريال خاتمه وحوي أنا جواها آمنة حسين ورنقل وجوبة تولد الجرفلي وحوي عيدا كأسيلا يوحنا نقول قاضي ويرن هالكاسو شعب يا عهورة يا ماتوي كل أيه ونبو باللغايستي أحنا كاس أوروكا نوي دريال كريح ونوجا تحسيادية أنا والله يسوي كل شيء أوروكا دريال يسوي كل شيء deeq lacaga inaan gaarsiiyo qolihii awrmadaha ee ku baxay dagaalkii waan gaarsiiyay gudoomiyaha waxaan ka guddoomay ururka daryeel yihiin ilma Saleebaan Axmed Shuqlow wixii soo diray wixii dhiba Allah ka ajirsiiyo assalaamu alaykum daryeel Khaatumo Taleex laantiisa Taleex waxaan deeq lacageed oo la soo wakiishay aan u keenay dadkii la soo wakiishay waana خليف سعيد عبد الله خليف سعيد رورا هي خليفة قدوم عن ولا قدومي بس العكتي دريال خاطر تلح دقيقة اللي سوق السؤال قدومي أنا نوع قاضي لا هنا ينحكى sidoo kale waxa iyadana qayb ka ahayd mid kamid ah hooyada dhashay caruur agoon oo markaas iyadoo ku dhaqan degmada Laascaanood ee gobolka Sool oo markaas ururka daryeel xafiiskiisa Taleex lagu guddoonsiiyay isku soo wada duub oo deeqdan lacageed ayaa waxa iyaguna ka mahadnaqay dadkii iyagu markaas goobahooda lagu gaarsiiyay iyagoo markaasna ururka daryeel uu kamid yahay ururada ugu firfircoon ee ka howlgala deegaanada Khaatumo mana aha markii uu horeysay wax qabadyo noocan oo kala ay ka hirgeliyaan deegaanada Khaatumo oo idil Maxamed Ismaan Cabdi Nuur TV-ga caalamiga Somsat Taleex